Rusty Houghton waxa uu ku dhashay meel u dhow warshadda saliidda iyo gaaska lagu sifeeyo oo ku taala galbeedka Virginia. Aabihii, awowgii iyo awowgiisii labaadba waxay ka soo shaqeeyeen oo ay noloshooda ku soo maareeyeen waaxda tamarta. Aabihii iyo awowayaashii waxay ka soo shaqeeyeen ceelasha saliidda iyo dhuumaha shidaalka qaada, waxayna shaqo adag soo mareen xilli aanay dunidu casri ahayn si ay u maareeyaan nolosha qoyskooda. Rusty qudhiisa markii uu iskuulka dhiganayay iyo markii uu jaamacadda ku jirayba wuxuu shaqada la aadi jiray aabihii, laakiin markii uu jaamacadda ka qalin jabiyey sanadkii 1991 wuxuu go'aansaday inuu shaqadiisa ka dhigo wax ka duwan wixii ay waalidkiisa qaban jireen. Waxa aan garowsaday in aanan noloshayda meel uga soo darin ka shaqaynta saliidda iyo gaaska, ayuu yidhi. Markii horeba ma aan danayn jirin, runtii waa shaqo aad u adag. Sidaa darteed, maadaama uu cilmiga xisaabaadka ka qalin jabiyey jaamacaddii ugu caansanayd galbeedka Virginia, wuxuu xirfadiisa ka dhigtay inuu bangiyada ka shaqeeyo. Hawshaas wuxuu ku jiray muddo 10 sano ah. Markii ugu dambeysayna wuxuu ku soo gabagabeeyey magaalada Birmingham ee gobolka Alabama. Laakiin intay sanadahaasi socdeen, Rusty wuxuu sheegay in aanu ku qanacsanayn go'aankiisa ahaa in aanu raacin raadkii aabihii. Galbeedka Virginia waxay ahayd meel ay xaaladdeedu adag tahay markii aan soo korayay, welina waa sidii. Dadku waxay u qaybsanaayeen 2 nooc, qaar ka shaqaynayay macdan qodista iyo qaar ka shaqaynayay shidaal qodista. Waxay ahayd arrin shiilal soo socotay. Haddii ay aabbaha iyo awowgaa noloshooda ku soo maareeyeen, adiguna waa inaad raadkoodii raacdo. Dhowr sano markii aan xirfadayda kale ku dhex jiray, waxaan dareemay inaan sharfi waayey shaqadii waalidiintayda. Waxa kale oo aan niyadda ku hayay in aan dhiso wax aan anigu la imi. Sanadkii 2001, isaga oo 32 jir ah, Rusty Houghton ayuu iibsaday ceel hore oo gaas ah. Ceelkaas oo ku yaalay galbeedka Virginia, wuxuuna ku iibsaday lacag dhan $250,000 oo dollar. Lacagtaas wuxuu ka helay gurigiisa oo uu iibiyey. Wuxuu ahaa ceel yar oo qadiimi ah. Muddo sanado ah ayaa wax laga soo saarayay, laakiin aniga wuxuu ii ahaa sidii dahab oo kale, ayuu yidhi Rusty Houghton. Weli 4 sano ee xigtay, bangiga ayaan ka sii shaqaynayay, laakiin markasta oo aan fursad helo waxaan u duulayay galbeedka Virginia si aan ceelka uga shaqeeyo. Si tartiib tartiib ah ayuu u koray ganacsigii. Muddo dheer kadibna wuxuu gaadhay heer aad u wanaagsan.